بسم الله الرحمن الرحيم كلن wanaagsan khiyaarta nala socotay idilkeenba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada tabin cusub oo kamida dawladda Itoobiya ayaa ku dhawaaqday in ay u diyaar garoobayso weerar ay ku qaadaan ciidamada militariga ee dalka Eritrea shir jaraa'id ayuu ku qabtay magaalada Addis Ababa wasiirka amuraha dibadda Itoobiya waxana sidoo kale uu qeexay in ay diyaar u yihiin la wareegitaanka dekedda weyn ee Casab labada dal ayaa haatan isku diyaarinaya dagaalka madambeysa iyadoo Itoobiya ay sheegtay in lagu soo xadgudbay madax banaanideeda oo durbaba ciidamada wadanka Eritrea ay ku sugan yihiin gudaha wadanka Itoobiya haddaba dagaalkan saameyn intee leeg ayuu ku yeelan doonaa mustaqbalka gobolka Geeska Afrika maadaama Itoobiya ay tahay dawladda ugu dadka badan ee gobolkan ku taala samarkana haddii dagaal la qarxaan laga cabsin qabo in xaaladdu ay sii cuslaato sooyaalka labada dal ee dagaalka iyo taariikhda ku dhisan ayaan idinkula wadaagi doonaa barnaamijka militariga wadanka Suudaan maanta waxa uu guulo lama filaan oo waaweyn uu ka gaaray qaybo kamid ah gobolka Kordofaan oo ay gacanta ku hayeen maleeshiyada dacmo sariic ee la dagaalamaysa dawladda oo ay Baritaan dawladda isu tagay Imaaraadka Carabta talaabadan ayaa durbaba muujisay mustaqbalka wadankaasi iyo waliba awoodda dib u xoogaysanaysa ee dawladdaasi Suudaan xilli qaar kamid ah dawladaha waaweyn ee la loomaya wadanka isu tagay Imaaraadka Carabta ay saameyn ku leeyihiin dagaalka haddaba weerarka ugu dambeeyay goosha militariga Itoobiya ee iraade Suudaan ay gaareen ma lagu fasiri karaa in durbaba Imaaraadka uu bilaabay marka laga yimaado dhinaca ra'yiga dhinaca goobaha dagaalkana inuu ku fashilmayo falaqayn gaar ah ayaan arrimahaasi ku sameyn doonaa inta aan barnaamijka joogno dawladda Sacuudi Arabia waxa markii ugu horeysay Trump uu ogolaaday in laga iibiyo diyaaradaha F-35 oo ah nooca diyaaradaha horumarsan ee dagaalka oo ay kaliya gobolka bariga dhexe ka haysatay Israel tani waxay muujinaysaa isbedelada weyn ee gobolkaasi ku dhacaya iyo waliba Israel oo kaliya inaan u xirnaan doonin hubka ballaaran ee uu soo saaro wadankaasi Mareykanka xilli loolanka Shiinaha iyo Ruushku uu cirka isku shareerayo khiyaarta inala socotay qodobadaasi oo taaban doona bariga dhexe iyo bariga Afrika ayaan ku fiirinayaa barnaamijkan dad culus ayaa ka taagan gobolka Geeska Afrika dawladda Itoobiya oo dhexdeeda ay ka taagnaayeen dagaalo jabhada abaabulan ay ku qaadayeen dawladda Addis Ababa hadda waxay isku diyaarinaysaa dagaal ballaaran oo ay la gasho dawladda Eritrea wasiirka wasaaradda amuraha dibadda ee wadankaasi Gideon ayaa ku dhawaaqay in wadankiisa uu diyaar u yahay abaabulitaanka weerar culus isla markaana wixii haatan ka dambeeya laga gudbay buu yiri dulqaadkii dawladda Itoobiya dul saarnaa waxa uu tilmaamay isagoo wariyaasha kula hadlaya magaalada Addis Ababa in qaybo kamid ah wadanka waa Itoobiya ay ku sugan yihiin ciidamada Eritrea hase yeeshee xukuumadda Casmara ayaan ilaa iyo hadda war dhameystiran arrintaasi ka soo saarin dhinaca kale dawladda Itoobiya waxa ay ku dhawaaqday in aysan marnaba ogolaan doonin dekedda Casab in ay gacanteeda ka sii maqnaato taas oo ay tiri waxa wax u dhimaya amniga jiritaanka Itoobiya mustaqbalka iyo waliba kor u kaca dhaqaale ee wadankaasi kaliya dooda kuma saabsana ayuu ku dhawaaqay wasiirka amuraha dibadda Itoobiya Gideon saatee waxa uu qeexay tan inay qayb ka tahay kala fikir duwanaanshiyaha labada dal iyo daandaansiga Eritrea uu ku tilmaamay in Itoobiya aysan aqbali karin xilligan waxayse su'aasha la isweydiinaya ay tahay sida dawladda Itoobiya ay weerar ugu qaado Eritrea ay ugu guuleysan karto maadaama la eego taariikhda labada dal inuu yahay mid dagaal cunfi iyo waliba rabshado ballaaran ay ku dhisan marka la fiiriyo xukuumadihii kala duwanaa ee kala hogaaminayay labada dhinac waa TPLF uu hogaaminaya Malla Zanaawi rajimkii muddada dheer Itoobiya ee dagaalada la galay Eritrea isla markaana inta badan dagaaladaasi ay ka dhaceen Baadhama oo la sheegay lacaga malaayiin dollar iyo kumanaan qof labada dal inay isaga dileen xilligaasi Siyaasa Fawarqe waxa uu ku guuleystay in hujuumka dhinaca Itoobiya uga imaanaya iyo weerarada ay ka hortagaan ciidamadiisa isla markaana ay jilibka u dhigaan Eritrea ayaa ahaan jirtay dal ka tirsan Itoobiya waxana ay ka gooday
horaantii sagaashamaadkii ee qarnigii tagay kadib markii jabhada iswatay oo Mallas iyo Afwerqi ay kala hogaaminayeen ay la wareegeen talada labada dhinac isla markaana Eritrea ay ku dhawaaqday madax banaanideeda markii ay ka baxday Eritrea guud ahaanba Ethiopia horaantii sagaashamaadka dowladda Ethiopia ayaa noqotay mid aan bad lahayn oo dekada Casab ay ka go'day iyo dekadihii kale ee kulaalaya badda Cas wixii xilligaasi ka dambeeyay dowladda Ethiopia ayaa heshiisyo ganacsi oo dhinaca badda la gashay wadanka Djibouti halkaasoo inta badan waxyaabaha u soo dega wadanka Ethiopia ay uga yimaadaan laakiin wixii ka dambeeyay markii ninkan hadda talada haya ee ka yimi militariga dhinaca sirdoonka waa Abiy Ahmed waxay dowladda Ethiopia gashay jahwareer cusub oo ilaa iyo hadda xaaladiisa la bixin layahay kadib markii dhowr wadan uu isku taagay isagoo si fagaaro ah u sheegay wadankiisa inuu doonayo inuu gacanta ku dhigo qaybo kamid ah dekadaha ku yaala badda Cas Somaliland oo ah maamul aan wali la aqoonsan oo ictiraaf raadis oo Soomaaliya sheegaya in uu ka go'ay laakiin Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ay u aragto nidaam hoos yimaada ayaa waxa uu ka waday bishii January ee sanadkii 2024 uu la galay heshiis kaas ayaa dhaliyay xiisada u dhaxaysa Muqdisho iyo Addis Ababa inay cirka isku shareerto xitaa ay ku dhawaatay labada dhinac inay gacanta iskula tagaan fagaarayaasha diblomaasiyadda caalamka ayaa lagu dagaalamay walow ugu dambeyntii reer galbeedka iyo dowladda Turkiga oo arrintan soo farageliyay ay ku guuleysteen in ay labada dhinac ay xalliyaan inkastoo Ethiopia aanay si dhammaystiran ugu dhawaaqin isafgaradka ay la gashay Somaliland inay burisay oo Imaaraadku gadaal ka taagnaayeen haddana marka la fiiriyo xiisadan cusub ee Eritrea ayaa noqonaysa in siyaasadda Abiy ay u muuqato mid gabi dhaclaynayso oo hadba dhinac uu isku taagayo iyadoo taa laga duulayo marka la eego siyaasadda dekadaha ee dowladda Djibouti ayaa noqotay mid kale oo yaab leh oo caragelisay dowladda Ethiopia kadib markii Ismaaciil Cumar Geelle uu toddobaadyadii la soo dhaafay heshiisyo la galay wadamada Masar iyo Saudi Arabia oo labadaba kamid ah wadamada badda Cas kulaala oo Ethiopia aysan isku wanaagsanayn iyadoo arrintan laga urinayo dhaqdhaqaaqyada Ethiopia in ay saameyn ku leedahay dowladda Imaaraadka Carabta talaabada ay qaaday dowladda Djibouti ayaa noqotay mid go'doon siyaasadeed iyo dhaqaalaba gelinaysa dowladda Ethiopia waxana Masar ay u muuqataa haatan inay saddex dhinac ka fadhiso dowladda Ethiopia waa Eritrea oo bahwadaag siyaasadeed iyo military ay yihiin dowladda Djibouti oo ay dekedeedii qaybo kamid ah qabsatay iyo Soomaaliya oo ay aad isugu dhow yihiin lana filayo ciidamo ka socda dowladda Masar in la geeyo gudaha Soomaaliya taasoo Ethiopia ay hore u sheegtay amniga qowmiga ah ee wadankeeda in uu si gaar ah u taabanayo haddii dagaal uu ka dhaco xadka u dhaxeeya labada dhinac ciidamada Ethiopia ay dagaal ku qaadaan gudaha dhinaca Eritrea waxa muuqata sida qubarada wax taxliilinaysa ay tilmaamayaan in ay guulo degdeg ah aysan ka gaari karin marka lagu aqriyo nuglaashiyaha iyo kala furfurnaanta ka jirta gudaha Ethiopia ma haysato ciidamo ballaaran oo dagaalami kara khibrad badanna leh inta badan ciidamadeeda waxay ku dhamaadeen dagaalada ka soconaya gudaha dalka iyo jabhadaha kala duwan ee Tigreega Ola oo dhinaca Oromada ah iyo waliba Fana oo dhinaca Axmaarada ka socota oo maalmihii ugu dambeeyay is hayeen Ethiopia inta badan dagaalo ayaa ka soconaya marka laga reebo gobollo kooban uu kamid yahay kan Soomaalida oo hadda qudhiisaan caga badan ku taagnayn marka la fiiriyo siyaasadda kala dhaxaysa Addis Ababa dhinaca kale dowladda Eritrea oo aan dagaalo galin wixii ka dambeeyay markii ay Ethiopia dagaalameen dagaaladaasi oo ah kuwa buuxa waxa ay haystaan ciidamo ku filan iyo waliba dabaabaad xoogan iyadoo Addis Ababa qudheeda wasiirka amuraha dibadda Ethiopia uu qiray in Ethiopia waa Eritrea ay dhisayso military aad u xoogan kaasi oo qalqal gelinaya amniga gobolka si gaar ah dowladda Ethiopia haddii dagaaladan ay dhacaan midda qubaradu ay tilmaameen in la hubo ayaa u muuqata in Addis Ababa dhibaatooyin ay ka soo gaari karaan dhaxdeedana ay kala furfurmi karayso taas oo sabab u noqonaysa yoolka jabhadaha qaar Ethiopiaanku ay raadinayaan inay suuro galayso waa jabhadda Axmaarada oo Fana loo yaqaano oo doonaysa boqortooyada dirgiga inay dib u soo celiso
oromada isku aragta inay tahay tan ugu ballaaran oo haddana u aragta in lagu gacan bixeeyo xukunka iyo talada waddankaasi sida ay rabeenna aysan wax noqon iyo Tigreega oo doonaya taladii TPLF gacantooda ka baxday inay soo celiyaan ay u dagaalamaan ayaa waxay noqon doontaa Ethiopia in ay dagaal la sukayo oo ballaaran ay gacanta la gali doonto cabsida reer galbeedku ay qabaan waxa ay tahay haddii Ethiopia ay burburto mustaqbalka gobolka geeska Afrika oo hadda la nugul dagaallo meelo kala duwan ka socda kuwa argagixisa ay ka mid yihiin sida uu mustaqbalka noqon doono khiyaarteena la socotay wixii ku soo kordha arrintan dib ayaan ugu falanqeyn doonaa barnaamijyadeena kale ee haddii aan eego wararka kale aan idin hayo militariga dowladda Suudaan ayaa ku dhawaaqay inay dib u qabsadeen magaalada ku taala waqooyiga Kurdifaan ee Kasgil halkaas oo ay gacanta ku hayeen maleeshiyaadka dacmo sariic ee taageerada ka helaya dowladda isutaga Imaaraadka Carabta sida la helayo wararka waxay tilmaamayaan ciidamada militariga waddanka Suudaan oo ay garab taagan yihiin xogaga sida buuxda u taageersan ayaa si rasmi ah ula wareegay gacan ku haynta deegaanka ama magaalada Kasgil loo yaqaano ee koonfurta ka xigta magaalada Al Ubayd ee gobolka waqooyiga Kurdifaan howlgalka oo bilowday aroornimadii hore ee saaka ayaa ahaa duulaan degdeg ah oo si taxadir leh loo qorsheeyay kaasoo ciidamada militarigu ay ku gaareen meelo istiraatiiji ah iyagoo dagaalo culus uga saaray maleeshiyada RSF-ta oo Imaaraadku ay si weyn u biritaaraan haddaba maxaa laga yaqaanaa magaalada ay la wareegeen ciidamadan magaaladan sida la tilmaamayo ciidamada dowladdu waxay ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan xarumo muhiim ah iyo goobo istiraatiiji ah oo waqtiga ugu dambeeya RSF-ta ay gacanta ku hayeen saraakiisha militariga Suudaan ayaa xaqiijiyay in howlgalku uu ku guuleystay iyadoo qasaaro xoogan la gaarsiiyay kooxda RSF isla markaana ay jiraan ciidamo ka tirsan dowladda oo wax soo gaareen deegaanka Kasgil ayaa loo arkaa afuraha difaaca magaalada Al Ubayd oo muddo dheer ahayd bartilmaameed ciidan oo muhiim u ah labada dhinac hadalla ka soo baxay militariga ayaa lagu baahiyay warbaahinta waxaana afhayeen u hadlay ciidamada uu sheegay in howlgalka uu socday qayb ka ahaa dadaalada dowladdu ay ku doonayso soo celinta amniga iyo xasiloonida dalka iyadoo ku adkaysanaysa in ciidamada wadaniyiinta qaranka dowladdu ay sii wadi doonaan inay ka saaraan RSF-ta oo ay ku tilmaameen kooxo calood u shaqaystayaal guud ahaanba dalkaasi saameynta iyo xaaladda gobolka ee Kasgil ayaa noqotay mid si gaar ah warbaahinta Carabtu ay caawa u tabinayaan guusha Kasgil ayaa ah mid bedeli karta baaliyiri isku dheelitirka awoodda dagaalka waqooyiga Kurdifaan maadaama deegaanadaasi uu yahay marin muhiim u ah oo isku xira gobolka inta badan waxaana sidoo kale cabsi laga qabaa in labada dhinac ay isku diyaariyaan dagaalo kale oo cusub maadaama RSF-tu wali ay gacanta ku hayaan qaybo ka mid ah gobolkaasi Imaaraadku waxay u muuqdaa in ay iminka lumiyeen goob istiraatiiji ah oo kooxaha taageeraya ay gacanta ku hayeen waxaana dhinaca kale muuqanaya in dowladdu oo garab ka helaysa dalal ay ka mid yihiin Sacuudiga dowladda Masar iyo waliba Turkiga in markan ay guulo ballaaran gaarayso dowladda Sacuudi Arabia waxa Trump uu ansaxay in laga iibiyo diyaaradda F-35 oo ah nooca dagaalka ugu dambeeya oo ay kaliya gobolka bariga dhexe ka haysatay Israel 48 diyaaradood ay lacag balaayin dollar ku bixin doonta dowladda Sacuudiga haddii ay gacanta ku dhigaan waxa ay ka dhigan tahay isku dheelitirka awoodda ee gobolka taas oo Israel qalqal weyn oo xagga amniga ah gelin doonta marka la fiiriyo mustaqbalka gobolkaasi Israel oo ka fakaraysa Israa'iisha weyn oo gaaraya wadamo fara badan oo Sacuudiga uu ka mid yahay hadda waxay u muuqataa tilaabadan inay qabjabin doonto aragtiyihii Netanyahu iyo qariiradii uu soo bandhigayay waayadii ugu dambeysay